haystaa baasaboor maxaa la yiraahdaa ay jahanabo wadamo shisheeye ayuu ka yimid dhulalka uu ka yimid sharcigu uu ku culus yahay waxaad ogtiin in dad badan oo reer Soomaaliland ay daba galeen dadkii xasuuqa geystay sida Cali Samatar oo kale ninkii la oranayay inay maxaa la yiraahdaa ay kiisaskii lagu xukumayo lagu soo taagay dadka reer Soomaaliland xasuuqu dadkoodii uu ku dhacay waxaan ugu baaqayaa dibadda joogay baasaboorada jahanabka sita inay gulwada ka dacweeyaan wadanka uu ka soo jeeday uu sharciga ka sito isla markaana la tigsada maxkamad ka xukumadahana gulwada waan dibad geli doonaa insha Allah hadii la yiraahdo meel uu ku badbaadaya gulwada maanta ma jiro asaga ayaa isku cadeeyay in dadkii laayay xasuuqaasina uu saxaa ninkii Soomaaligu aqliga xumaan weeyaan gulwada waxaad ka dhawaajisay makiinada xukuumadahan dibageli doontaan habkee aad u dibageli kartaan caalamka sharci baa ka jira xukuumaduhuna siday wax u gudanayaan siday maaragtay ay qof uga argoosanayaanba waxa weeyaan ninka Ilaahay ka dhawaajiyay dadku meel walba way joogaantii caalamka meel walba way joogaan adduunkana way jiraan maxkamada la iska dacweeyay adduunka sharci baa u yaalo maxkamada la iska dacweeyaa jiradii gulwadada marxaatina loo doon maayo halkan hadalkiisa baa ku jiray in xasuuqi sax ahaa dadkii iyo dumarkii caruurta ay leeyeen musaxa hadalkiisa halkan ku jira maxkamadaha caalamka ay gulwadada la tigsan doona haduu Ilaahay yiraahdo marxaatina isaga isugu filanba gulwada waxa xasuus mudan in habeenkii eedkii 31kii May subaxnimadkeedii subaxyada ku koobnaayay sanadkii ka dagaalamaysay magaalooyinka Soomaaliland guutooyinka caanka ah ee magacyada badnaan lahaa ragii laqay ay dirac iyo gogorad xidhanayeen gulwada iyo wixiisi xaqiisa ka soo jeeday oo meedhan ay dirayskii iyo darajadii badaadinayeen dirac